qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waa ciidan ku qalabaysan tiknikada ama hubka casriga ah maantana waxa weeye fagaarahan waxyaabahii ay ku soo bandhigeen waa mid cadowga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ku ah rutin ama naxdin nasteexaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliyana u ah farxad iyo qayn ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxay horay u ballan qaadeen in ciidooda aanu u soo tallaabaynin cadowga cid kastoo u soo hanqaltaagtana in ay marinayaan abaalkooda waxaana hubaal ah in marar badan ay ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ay duruus lama ilaawaana siiyeen cadow u soo hanqaltaagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ciidamada xabashida oo marar badan weerar daba jooga ku haya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxay u babacdigi waayeen tacshirada naxdinta lahayn ee ay kala hortagaan noocyada ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya go'aanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan hadii ay noqon lahayd difaaca cirka lidka difaaca cirka iyo difaaca badda waxay yihiin qaar si aad u adag oo aanu marna cadowga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya aanu damcaynin in uu cagta soo dhigo ciidda wax badanna waxa ay kala kulmeen jab iyo halaaga tiknikada ay ku qalabaysan yihiin ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waa tikniko casriya waxana taasi marxaati cad u ah guulaha faraha badan ee ay ka soo hoyiyeen fagaarayaasha ay isku haleelaan ciidamada cadowga xabashida iyo leyliyada faraha badan ee ay qaataan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxay u sahlaysaa hanashada hubka casriga ah ee ay ku dagaalgalayaan hubaal weeye hadii ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ay hawlaha carbiska ay si wadaan in cadowgoodu ay meel marinayaan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waa ciidan si habboon u adeegsada hubka casriga ah ee adduunyada ku soo shacbaha waxaana weeye ciidan si aada uga adaga adeegsiga iyo hanashada hubkaasi
ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxa uu diyaar u yahay mar kastana il aan hurdo lahayn oo ugu soo jeeda difaaca dalkiisa hooyo wuxuuna u ballan qaaday shacbigiisa in ay hurdaan isagoo markaasi yiri waxaan xabadka ama shafka u garaacaya in aan daafaco ciidina hooyo calankeena iyo jiritaanka haybadda iyo qarannimada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya